soo dhawaada channelkan Somali Bitcoin. Channelkan waxaan ka wada hadlaynaa dhinaca Bitcoin iyo cryptocurrency maalin kasta xaggu marayo. Hada channelka cusub tahay, like subscribe taabo si qofka loo arki karo videogan uu faa'iideysan karo. Aad ba mahadsantihiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa Fed man ka hadlaynaa Federal Reserve man ka hadlaynaa. Marka raggan waa ragga kala wada bangiyasha xagga interest lacagta la maahdo lacag ka baxaysa xagga ay alaabu marayaan si u qali garoobin. Marka aniga war cusub baa yimi oo xun baa yimi oo tas waxa weeye interest rate-kay sare u kicinayaan haddana. Marka interest rate-ka de cryptocurrency Bitcoin ku dhacaya wax kale wuxuu dhacaya wax kale maaha. Dadkii de hore lacagtu galiyay baa lacagtu u baahan inay naftooda wax taraan, reerada ku biilaan, inay dadkooda wax siiyaan. laakiin hadduu interest rate hadan uu kicin ka qofkii macaash buu ka helayaa lacag badan baa soo noqonaysa. Marka shilay waa la kiciyay. Marka Bitcoin aad iyo aad buu dhacay. Marka waxaan wax iska dhacda waa wax jirta laakiin markuu dhacana dib u saakaa wax kala maaha waxa koronta economy xaggu marayo. Waxa lagu leeyahay the market participants have allegedly awaited guidance on the extent to which policymakers were pushing against inflation and the certain Shabal referred to make a decision. Paul comments at the time when the Fed has taken steps to stamp down rising prices. Tough investors are looking forward for new guidance from this. Paul is largely expected to issue the same inflation fighting message, stressing that the Fed will use the rate hiking power to rein the peace. isna wuxuu leeyahay waxaan u kicinayaa interest rate wax kale maaha because wixii alabiba qaali garoobay dagaal baa socda. Marka iyo alabi si dalka u soo gelin dhinaca Yurub ka way adkaadeen. Marka intaas waa tabal inaynu balin kana Bitcoin xaggu maray maanta inuu inta dhacay. Nagan imka waxaan joognaa chat kan joognaa Bitcoin waa ka marka wigi hore waxa dad ugu 20,000 buu maanta 17,000 buu marayaa 3,000 buu dhacay oo gini 3,000 oo gini waa ugu yaraan $4,000 waxa weeye. Marka taas waa dhicitaan weyn taas wax kale maaha waxa aan sheegay waa alaabta la kaciyay. Ethereum no kala wigana waa kaasna waa kan dhacay. Marka haddaan u fiirino waan galno xaggu mariyay wigi ugu dambeysay tobanka isagoo wigi marka maalmo dhaweyd inta soo mariyay in badan taas uu soo dhacay in badan buu luusi. Marka wax kale maaha waxaan sheegaynay waxa weeye waa inflation kala kaciyay oo economic baa la yara tight la yaraadkii laakiin waxaan wax dhaca awal waan u dhacnay haddaan ka aragno bishoran haddaan eegno waa idinka arka intaas waa bishii hore markii dambe intaas u kacay. Marka waxaan wax marba dhacaysa waxaan waa iska economy marna u dhacaya marna u kacaya laakiin waxay ku xiran tahay xagga economy marayo. wax cusub ma Bitcoin intan markaas uu soo maray laakiin haddaan u fiirsano dhinaca fiican haddaan eegno wax koraya maalin kasta taas qofka ku saabiri oo isticmaalaya si culaabooda waxooda ugu iibsadaan oo adigoo lacagtada ku bedelan kartaa. Marka wax koraya wax laga dhuunta ma wax cusub weeyo oo economic la kariyo oo imka lacagta ku bedeli doono san filaya anigu. Marka qofka wuxuu baahan yahay education mid baahan yahay san markaas sameeyo waan ku soo qorayaa link aan ku soo qorayaa below waxaan ka akhriyay waxaan eegayo kulligiin baa dal eego Solana dal eego kulligood badan wada eegno maanta waa wada dhaceen laakiin waa caadi way soo noolaanayaan haddana super eegno wadinka wada saaka wada minus kulligood. Marka qofka laga xubaa education baahay wax ma akhrida oo la socota maalin laba lagu barto nawaata ku noqono meesha ku noqono lagu leeyahay Paul speech markuu codka taagi waxa lagu leeyahay follows the release of one of the favorite inflation metrics early Friday. The personal consumption index July PCP reading showed the over gain of 6% in July. Marka July ba bishii u fiicnaada sanad bishan imika 1% buu soo dhacay. Marka waxaan waa wax dhacaya markasta Korea waxa koona xagga economic marayo laakiin insha Allah waan soo fiicnaanayna aan waxa isleeyahay bisha November iyo bisha December baa bilow waaweyna wax kasta isbedeli doonaan oo laga yaabo Ruushka iyo Ukraine marka way heshiin doonaan dagaal ku dhacaya Bitcoin marka soo dib u kacaya waan ku soo qoray linkiga waan ku soo qoray waxaan akhrinay si ugu faa'iideysataan like subscribe taabta qofka waxaan ugu faa'iideysto maalin kasta nabiyada cusub soo duubna wana bari.